habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah adduunka oo dhan ayaa cambaareeyay kadib markii madaxweyne Trump la sheegay inuu aflagaadeeyay wadamada saboolka ah taasi oo u dafiray qaramada midoobay ayaana kamid ah kuwa ku tilmaamay hadalkiisa cunsurinimo booliska Pakistan ayaa $90,000 u ballan qaaday ciddii soo sheegta xogta ciddii dishay gabar 6 jir ahayd bandhiga qalabka tiknoolajiyada ee Las Vegas ayaynu idinkugu haynaa barnaamijkeena tiknoolajiyada ee Click madaxweyne Trump ayaa aad loo dhaleeceeyay kadib markii la sheegay inuu adeegsaday erayo aflagaada ah oo uu ku tilmaamay wadamo faqiir ah waxa la sheegay inuu sidan u hadlay isaga oo la kulmayay xubno ka tirsan Koongareeska Mareykanka kulan ka dhacay aqalka cad madaxweyne Donald Trump ayaa dafiray in erayo deelqaaf ay ka dhaceen waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Bidhaan Xaaji Daahir madaxweyne Trump ayaa lagu yaqaanaa inay ka soo baxaan erayo xambaarsan cunsuriyadi hadalkan imika ka soo baxay waxa uu dad badan oo caalamka ku riday la yaab hadalkan ayaa soo baxay iyada oo ay dood adag dhex maraysay iyo wada hadalba xubno ka tirsan Koongareeska Mareykanka iyo isaga oo lagaga hadlayay carruurta sida sharci darrada ku soo gasha dalkaasi sida ay sheegtay jariirada Washington Post madaxweyne Trump wuxuu yiri maxay dadka ka yimi wadamada qurunka ah oo dhami halkan u yimaadaan madaxweynaha ayaa la sheegay inuu waqtigaasi u jeeday dalka Haiti taasi oo imika dafiray laakiinse dalkaasi waxa dhawaan ka dhacay duufaanka Matthew haddii ay dadka reer Haiti ay imika ka baxaan Mareykanka way u xun tahay dhaqaalaha dalka maaha uun dadka ka shaqeeya waddanka laakiin dadka reer Haiti maalgelin ayay dalka ka sameeyaan iyagana waxa uu hadal xanaf la dusha kaga tuuray wadamada Afrika kaasi oo loo fasirtay inuu ha cayqayaxan dalka Nigeria dadku lama yaab ma ahan wax aanan laga filayn qofka caynkan ah maxaa yeelay horay ayaan u naqaanay waxa uu yahay dhanka kalena madaxweyne Trump oo la kulmay arbacadii ra'iisul wasaaraha dalka Norway ayaa sheegay inuu la yaaban yahay waxa ay Mareykanku waddankaasi Norway oo kale dad uga keeni waayeen qaramada midoobay ayaa sheegay in hadalkaasi laga soo xiganayo Trump These are shocking and shameful comments from the President of the United States. Hadaladani waa wax laga naxo oo fool xumo ah oo ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka waan ka xumahay ma garanayo kelmad kale oo loo isticmaali karo waa cunsurnimo Whose entire populations who are not white are therefore not welcome. dalka Mareykankana xubnaha Koongareeska ee labada xisbiba ayaa iyagu cambaareeyay hadallada ka soo baxay Donald Trump aqalka cad ee Mareykanka looga taliyay ayaa sheegay in iyagu mar walba soo dhaweynayaan ciddii Mareykanka wax ku soo kordhinaysa ee wax taraysa faahfaahin dheeraada ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaan bogga BBC Somali adigoo ka galaya mobilkaaga booliska Pakistan ayaa $90,000 oo abaalmarin ah u ballan qaaday ciddii soo sheegta warka qofka dilay Zainab Ansari oo 6 jir ahayd meydka gabadhan yar ayaa keenay dibadbaxyo rabshado watay oo ka dhacay magaalada Kasuur halkaasi oo ku dhawaad 10 carruur ah lagu dilay 2 sano ee la soo dhaafay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana ka waramaya booliiska iyo dadka banaanbaxaya ayaa isku dhacay kadib markii laga soo laabtay aaskii labadii nin ee ku geeriyootay rabshadaha magaalada Kasuur dadka ku dhaqan magaaladan ayaa aad uga caraysan dilkii iyo tacadigii jinsiyeed ee loo geystay Zainab Ansari oo ahayd 6 jir waxaa dadka ugu dambeysay iyadoo kaligeed u sii socota dugsiga quraanka kamaradaha wax ilaaliya ayaa laga arkay iyadoo nin aan la aqoon uu gacanta sii haysto talaadadan ayaa meydkeeda laga helay meelaha qashinka lagu tuuro ninkii dilay xitaa ma uusan isku dhibin inuu aaso Zainab aabaheed wuxuu ka qayb galay tacsi lagu qabtay masjidka ka soo horjeeda gurigooda isagoo Ilaahay uga baryay in xanuunka qoyskiisa Ilaahay ka qaado waa sida adduun dhamaaday waxaan ku maqnaa Sacuudiga xalay ayaan soo laabtay wax aan sheegana ma lahan isagu kuma raacsana rabshadaha ka socda magaalada balse uu fahmi karaa carada dadka banaanbaxaya ay u qabaan booliiska haddii boolisku shaqadoodu si fiican u qabsan lahaayeen way heli lahaayeen isla markii ay heleen muuqaalka balse dan kama gelin rabshooyinka ka socda magaalada kuma saabsana dalkii Zainab oo kaliya
in ka badan 10 carruura ayaa lagu dilay magaaladan labadii sannadood ee lasoo dhaafay waxaana la aaminsan yahay in kala badh kiisaskan dilalka ahi ay isla xidhiidhaan dadka ayaa hadda doonaya in laga jawaabo sababta aan xoogga loo saarin sidii loo joojin lahaa dilalkan aasif baaba inantiisa waxaa iyadana la dilay sannadkii lasoo dhaafay wakhtigan oo kale dharkeeda iyo alaabadii ay ku cayaari jirtay ayuu weli ku kaydinayaa qolkeeda oo ay ka mid tahay carruusadii ay u dhiibtay maalintii la waayey wuxuu aaminsan yahay isla ninka gabadhiisa dilay inuu dilay saynabna waxa aan dareemayo wax laga hadli kara maaha iyo cadhada iga buuxsantay gurigayga wuxuu isu beddelay meel xabaalah waxa weeye markaan maqlay saynab dhimashadeeda waxa ay igu noqotay wax murugo leh inaan inantaydii saas ku waayo siyaasiyiin badan ayaa booqday saynab qoyskeeda kadib markii ay kala kulmeen cadaadis fara badan bulshada una ballan qaadeen reerka inay sugi doonaan cadaaladda taliyaha booliiska magaalada ayaa shaqada laga eriyey koox baadhitaan ahna waa la sameeyey dadka magaalada deggan ayaa doonaya in lasoo qabto ninka dilalkan ka dambeeyey intii aanu mar kale ilmo kale dilin bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta facebook ayaa beddelaya sida uu u shaqeeyo habka gudbinta warkooda iyagoo hoos u dhigaya kuwa ganacsiga iyo warbaahinta madaxa shirkaddaasi mark zuckerberg ayaa sheegay in uu doonayo inuu xoogga saaro sheekooyinka qoysaska iyo saaxiibbada dhexmara ee bogga adeegsada shirkadaha facebook isticmaala ayaa arki doona in waxoodu ay hoos u dhacaan wasiirka lacagta ee waddanka koonfur afrika ayaa sheegay in dowladdiisu ay ku dhaqaaqayso qorshooyinka 90% waxbarashada sare lacag la'aan looga dhigayo ardayda cusub madaxweyne zuma ayaa qorshooyinkaasi ka sheegay shirkii xisbiga ANC ee dhacay bishii Diseembar ma cadda inta ay ku kacayso iyo sida loo qarash garaynayo waxaase jirta cabsi ah in jaamacadaha iyo kolleejooyinka ay ku adkaan doonto in ay maareeyaan codsiyada la filayo in ay aad u kordhaan markab shidaal oo ay Iiraan leedahay ayaa oo gubanayay ku dhowaad 7 kadib markii ay isku dhaceen markab xamuul ayaa u soo riixmay dhinaca biyaha Jabaan dabdamiyaasha Shiinaha ayaa weli isku dayaya inay damiyaan dabka balse waxaa hor istaagay hawada oo xun iyo qiiq sun ah 31 badmaax ayaana weli la la'yahay bandhig baabuureedkii ugu horreeyey oo loogu talagalay haweenka ayaa ka dhacay dalka Sacuudiga bilo yar kadib markii loo oggolaaday dumarka in ay baabuurta kaxayn karaan mas'uuliyiintuna waxay sheegayaan in ay dumarka bilaabayaan baabuurta wadida bisha 6 tani ayaa lagu tilmaamay in ay dumarka iyo dalkaba u tahay tallaabo horumar ah Caaisha Afrax ayaana ka warramaysa warbixinta in loo helaa shidaal gawaarida waa arrin aad muhiim u ah hablahan Sacuudiga u dhashayna waxa ay u arkaan bandhigan baabuurada ee aan shidaalka badan u baahnayn inay tahay tallaabo muhiim ah oo u horseedi doonto madax banaani tani waxay noo tahay arrin weyn weligeyba aad ayaan u xiisayn jiray baabuurta balse noloma ogolayn inaan wadno haddase waxaan rabaa inaan iibsado gaari bishii 9aad waxa soo baxay digreeto boqortooyo oo u ogolaatay dumarka inay gawaarida kaxayn karaan waddanka Sacuudiga midaasi oo loo arkayay inay keenayso horumar balse horumarka ma aha mid qiimo jaban nolosha ayaa kor u kacday kadib markii ay dawladdu kor u qaaday qiimaha shidaalka soona saartay canshuurta badeecadaha noloshu waa ay qaalooday balse uma eka inay ka joojin karayso haweenkan iibsashada baabuurta markii ay timaado bisha 6 It interests me to learn about the brands and to learn everything about them. I know a lot about cars and I hope to purchase one in the near future, God willing. Ugaashii tani waa ay diilo oo ay la qabto haween badan oo Sacuudiga ah markana wararka ciyaaraha ugu waaweyn ciyaartoyga Arsenal Theo Walcott ayaa ka sii baxaya garoonka Emirates maamulaha Everton Sam Allardyce ayaa sheegay in uu kala hadlayo lacagtii uu kula wareegi lahaa ciyaartoyga kale ay isku kooxda yihiin Alex Sanchez ayaa isna naadiga ka tagaya wuxuu baxayaa bishan marka kooxdu hesho cid isaga qaadata iyo cid ay booskiisa ku bedelaan
markii ugu horreysay maanta waxaa haweenka sacuudiga loo oggolaan doonaa in ay garoonka kubadda cagta toos ugu daawadaan ciyaar markaasi ka socota. garoonka King Fahad ee magaalada Riyadh ayay ku daawan doonaan ciyaarta dhex maraysa labada naadi ee Al Ahli iyo Al Baytin, waxaana la rumaysan yahay inay qayb ka tahay dib u qaabayn dhowr ah oo ka socota boqortooyada, taasi oo uu keenay amiirka dhaxalka leh ee la yidhaahdo Maxamed bin Salmaan. ninka dhagaxda fuula ee waddanka Hong Kong Lei Chai-wai oo hal lug naafana ka ah ilaa iyo sinta ayaa noqday ruuxii ugu horreeyey ee Shiineys ah oo loo magacaabo abaalmarinta Lores ee isboortiga. shil gaari oo dhacay 7 sano ka hor ayuuna ku beelay lixaadkiisa, balse taasi kama aysan joojin inuu gaaro wuxuu jeclaa. 35 jirkan ayaa loo magacaabay abaalmarintan kadib markii uu ku guulaystay in uu koro dhagax dhirirkiisu uu yahay 495 mitir. caawa iyo barnaamijkeenna kilig ee tiknolojiyadan waxaan idinkugu haynaa carwada electronicska iyo tiknolojiyada ee Las Vegas. Cabdiraxmaan Bidhaan ayaana ka waramaya barnaamijkaas. carwada caalamiga ah ee qalabka electronicska ee Las Vegas ayaa waxaa lagu soo bandhigay tiknolojiyadii ugu dambeysay, laakiin sanadkan wax waliba sidii loogu talagalay umay dhicin. robotka shirkadda LG Cleo ugu dhaga nuglaan amaradii la siinayey markii la daah furay. hoolkii lagu kulansanaana isna korontadii ayaaba ka gooday oo waa la is arki waayey kadib markii halkaasi mahiigaan ka dacay. carwadan ses ayaa qayb dhan oo ka mid ah loogu talagalay gawaadhida korontada ku shaqaysa, kuwa iswada iyo arrimaha ilaalinta deegaanka. waxaa kaloo halkaasi ka dhacday nin waliba ceesaantii ceelkeen. Amazon, Google, Philips iyo Apple ayaa keenay qalabka codadka loo adeegsado ee dadka caawiya. xitaa waxaa jiray qof kula joogaya oo mal-awaal ah. shirkadda Switzerland ee Mitibi ayaa sheegaya inay gurigaaga dad mal-awaala dhigayaan oo ilaalinaya markaad ka maqan tahay. nolol maalmeedka qofka ayaa la ogaaday inay muhiim u tahay in baytariga cimrigiisu dheer yahay. tusaale ahaan shirkadda Lenovo ayaa tabletkeeda cusub waxa uu leeyahay 20 saacadood ayaan shaqayn karaa. dhanka kalena baarashuud haweedkan ay samaysay Helit waxaa loo sameeyey hab badbaadinaya qofka xidhan haddii hoggaanku u go'o. laakiin iyaguna waxaa jiray oo carwada yaallay qalab badan oo xiise leh oo uu ka mid yahay Sony Aibo Robot oo isagu ah ayga soo laba kacleeyey isaga oo maskaxdiisana la casriyeeyey. qalabka robotyada ayaa hore loo mariyey si ay dadka ula falceliyaan. waxaa kaloo jira iyaguna sawirka moobaylka lagu qaado ee selfiga oo 3D ah. haddii aad dadkaagu kaba helin internetka iyo baraha bulshadana waxaad tijaabisaa daabacadda cajiibka ah. qofkii kanadiyanka ahaa ee dhisay qalabkani wuxuu rabay inaanu ka xidhiir furmin hooyadii oo joogta dalka Jabaan. ugu dambayntiina aan daawanno tartan baaskiilada oo ka dhacay waddanka Australia. wariyahan ayaa tabinaysay dhammaadka tartan baaskiilada markii gaari weyn uu soo galay jidka tartanka. nasiib wanaag cidi waxba kuma aysan noqon, wax kaloo dhibaatana ma dhicin, balse gaariga ayaa la tegey astaantii diilinta dhammaadka ee tartanka. degdeg ayaa loo bedelay si tartamayaasha soo haray aysan u waayin halkii ay ku gabagabayn lahaayeen tartanka. warkan iyo kuwii ugu dambeeyeyba waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeenna bbcsomali.com. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna iyo waxyaabaha kalena ood ka helaysaan barteenna Facebook bbcsomali.com, iyo sidoo kale waxaad nagula soo xiriiri kartaan barteenna Twitterka ee bbcsomali.com. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caawa. waadna ku mahadsantihiin daawashadiinna. intaan kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo habeen wanaagsan.